war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Galmudug ayaa lagu hakiyay wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Galmudug waxay joojisay xiriirka wada shaqaynta ee dowladda federaalka inta heshiis siyaasadeed laga gaarayo arrimaha dhamaystirka dastuurka doorashooyinka federaalka iyo amniga qaranka. Sidoo kale war-saxaafadeedkan oo aad u dheeraa ayaa Galmudug waxa ay beesha caalamka ka dalbatay inay si dhow ula socdaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo inaysan aqoonsanin sharciyada ee waddo xukuumadda Soomaaliya iyo inay xoojiyaan la xisaabtanka dowladda federaalka. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu aad u xun yahay xiriirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada qaar. Dhowaanaya sidoo kale maamulka Puntland waxa uu sheegay inuu xiriirka u jaray dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xukuumadda Puntland ayaa horaantii isbuucan ku dhawaaqday inay guud ahaan joojisay wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya inta laga heshiinayo arrimaha ay isku khilaafsan yihiin. Qoraal af Ingiriis ku qoran oo Puntland ay u dirtay beesha caalamka iyo dalalka daneeya Soomaaliya ayay ku sheegtay inay joojisay dhammaan arrimihii ay ka wada shaqaynayeen. Dowladda Puntland ayaa sidoo kale sheegtay inaysan aqoonsan doonin dhammaan shuruucda ay meelmariyeen golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya sida sharciga doorashooyinka, sharciga shidaalka iyo xeerka canshuurta dalka oo ay sheegtay inaanan lagala tashan. Qoraalkan ay Puntland soo saartay horaantii isbuucan oo dheeraa ayaa looga sheekeeyey shirkii fashilmay ee Garowe, waxaana Puntland ay ugu baaqday dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka in shirar kale lagu kulmo si heshiis looga gaaro qodobada salka ku ah khilaafka labada dhinac.